Bismillaah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan wada salaamay walaalaha qiimaha iyo qadarinta la saaxiibka ah. Waxaan igu wada salaamay salaanta islaamka. Salaan kadib, halka aad naga daawanayso waa channelka Nan Fashion and Cooking. Haddaa ugu horreyn ku cusub tahay channelka, waxaan ku leeyahay soo dhawaaw, subscribe saar, kadibna gambaleelka taabo saad ula socotid video walba oo cusub. Haddaa hore igula joogtane, like saar, wixii fikrad iyo commenteena igu reeb please qaybta commentiga. Lana sii share garee asxaabtaada si ayagana uga faa'iidaan. Waadna ku mahadsan tahay. Soo dhawaaw ayaan ku leeyahay. Ku soo dhawaaw qalbi furan iyo gacmo furan. Iyo maanta oo walaashinii wado qada aad u fudud ka faa'iidaysi waan asxaabteyda. Soo dhawaada. Bismillaah. Asxaabta waxaan meeshaan kusoo diyaarsanay qadada waxaan ka suubi doonaa insha Allah. Qada aad u fudud aad u macaan ayaan soo suubi doonaa. Halkaas waxaa noogu jiro hilib shiishiid, hilib jiir oo la soo shiiday oo noo diyaara, iyo sidoo kale malaygan asna waa soo nadiifi doonaa insha Allah. Indhahaasi waxaas dhan ayaan ka soo nadiifi doonaa, ka soo dhaqi doonaa, ka bacdina waa dhanaani doonaa, ufunka ayaa u diri doonaa. Sidoo kale suugada waxyaabihii aan ku darsan lahayn ayaa meeshaan noogu diyaar ah. Masha Allah asxaabiisa u jeediin halkaas. Halkan bacda waxa ku xiran waa kamsar shiidan oo ka soo bixiyay qaybta barafka. Diyaar ayay ii ahayd. Waxyaabahan ayaan isku soo dardari doonaa insha Allah. Suugada ayaan bilaaban doonaa. Halkan ayaan yaanyadii ku soo shubtay. Yaanyadaas gasaca iyo yaanyada caadiga nooleed oo isku soo daray iyo toon yar oo ku soo daray waaye. Halkan waxaa iigu jira raqayga aan lafta lahayn ayaa yaanyadaas iyo toontaas ku soo shiidi doonaa suu dhadhan fiican noogu yeelo. Qayb ayaan meeshaas kula daray yaanyadii iyo toonta ayaa ku jirtay. Asna laf kuma jirto waan kula shiidi doonaa insha Allah. Ka faa'iidaysi waan asxaabay. Raqayga aad ayuu u maceeyaa suugada. Dabka ayaan waxaa soo saaranay digsigii iyo saliidii. Saliid ayaa wax yar noo kululaatay. Basasha waxay noo ahayd 2 basal. Midna waan soo jarjaranay. Hadda ayaan ku dalaci doonaa. Midda kalena hadhowta ayaan gadaal uga dari doonaa idii barbarooniga. Masha Allah basashii way noo kululaatay, wayna noo gududatay. Haddana waxaan ku dari doonaa insha Allah hilibka. Ayaan wax yar inta ku darno ayaan ku dabooli doonaa ilaa intuu Masha Allah wax yar uu kasoo dhahayo wax yar uu kasoo biyo dhalaayo. Saabay Masha Allah qof suugada si uu karsadaa laakiin sidaan ani si fudud inay tahay aaminsanahay wax biyo iyo suugada ka rabaymayso because hilibka hadda ayuu dheecaanka ka baxay, dheecaankiisa ayuu dhalay. Haddana yaanyadii shiidneed ayaan ku shubay. Intaan markaa isku daboolo isku soo dhex karkaraan. Masha Allah baradhada iyo karootada gadaal ayaa uga dari doonaa. Inay ku jajabto ma rabo, inay ka dhex muuqato ayaan rabaa. Because hilibkii ayaa shiishiid haday ya basash ay baradhada iyo karootada wixii ku jajabaan wixii dhan waxay noqonayaan wax isla fadhiyo. Hadhowtina isha uma bagi doonto like hadda wixii kala soocan yihiin uu bagi Masha Allah hadda waa kaasa wax biyo kumaana darin. Yaanyada dheecaankeedii iyo hilibka dheecaankiisii ayaa isku soo karsaman. Baradhada iyo karootadii noo diyaar ah ayaa haddana ku kor shubaynaa. Ujeedin asxaabay Masha Allah maraq digaagiisii ayaan ku dareynaa. Suugo aad u fudud waayo oo waqti badan ka qaadanin laakiin si qurux badan oo macaan badan ku soo baxayso oo Masha Allah qof yar iyo qof weynba uu ka heli doono. Waa ka wax yar ayaan isku walaaqaynaa kadibna waan dabooleynaa. Inta ay isku bislaanayso dabkana zaid uma dheereynayno, zaid uma gaabinayno. Masha Allah saas ayay noqotay. Haddana waxaan ku darsanay kamsartii oo noo diyaar ka ahayd. Waan shiidneed waan ku darnay wax yar ayaan ku walaaqaynaa. Waan ku dabooleynaa digsigii iyo gurigii iyo wixii dhan waa isla soo carfayaan Masha Allah. Basashani iyo toonteeni basashii iyo barbaroonigii ayaan ku soo daray. Waa ka suugadeeni saas ayaaba noogu sii bislaatay. Asxaabi halkaan waxaa noo diyaar ah soo jeedin malayga halka ayuu horta ka jeexan yahay habko
qanshiir maaldhaa waxa uga jira ma garanayo iyo calooshii wixii halkaas ku jiray halkaas anaa ka jeexay mindidaas ayaa wax uga siiyey wasaqdaas aan la fiiri karin ayaan kasoo baxshay waa calooshii wixii gudgudaha oo dhan iyo indhihii iyo meeshaas jeexan oo ilaahay ugu talagalabo qanshiirka iyo waxa ugu jiray iyo qanjirada ugu jireen ayaan ka bixiyey kadibna hadda waa nadiifsaneynaa maasha allah biyahaas ayaan ku furaa xoogaa ayaan kor iyo hoos iyo gudaha iyo meel kasta ka dhaqaa nadiif inuu noqdo waaye asxaabey si fiican in loo dhaqo ayaa wanaagsan malayga maxaa yeelay carar uu cunaa wasaq uu cunaa maasha allah waa iska dhaqan yahay alxamdulilah waa xalaal ilaahay noo xalaaleeyay laakiin wasaqdiisa badan waa inaad si fiican biyahaas uga dhaqdaa nadiifkaas aa ka dhigtaa indhihii meelaha ka bixisay wasaqdii dhiigii wasaq ma aha laakiin haddana waa dhiig iyo wax ku halhaleysan aad dareemi kartid alxamdulilah waa inaad si fiican uga dhaqdaa ilaahay hadduu biyo iyo nasiiyo xoog waa inaa wax nadiifa cunaa saas ayaa dhexdiisa nadiif uga dhigay maasha allah kadibna waa dhadhanaankiisi afka waa inaad si fiican biyaha uga shubtaa maxaa yeelay caro iyo waxaas ayuu cunaa malayga waa fahmi kartaa haddana halkan waxaa kusoo diyaarsanay yaanyadii haddaay aan shidanayno wax yar ka reebanay sidoo kale color food basbaaskaas yarka xawaashka malayga lagu talagalay iyo sidoo kale maraq digaag iyo saliid yar ayaa isku darsanay intaas ayaan isku qasi doonaa kabacdina waan marineynaa asigoo idil saxanka yarka iyo waxaan haystaan ufankaas yarka oo waxyaabaha yaryar oo fudud loogu talagalay asigna halkaas xab malayga uu la egyahay maasha allah si fiican ayaa u marinaa kaas ayaana geli doonaa wax yar ayuu kor iyo hoosta kasoo gudunaa malayga ma qaadiyo dab badan saa ogtihiin mana aha wax biyo iyo waxaas lagu daro wixii dhadhanaanka ahaa oo qalalsan oo dheecaan iyo biyo kala lahayn saliidii kaliya dheecaan u noqotay yaanyadii yareed ayaan haddana marmarina maasha allah kor iyo hoos meel kasta ka marina la socod wanaagsan maasha allah wixiis dhan waa soo marmarinay haddana ufanka ayaa u dirnay intaa baastada soo karinayna ayuu noogu jiraa waqti badan ma qaadanayo haddana meeshaan biyo baasta way noo karkareen cusbadiisii ayaan kusoo darnay sidoo kale waxaan ku shubi doonaa baastada ayaan kusoo shubanaynaa insha allah baastada baas balbalaar ayaan karsanaynaa dabka ayaan xoogaa u dheereynaynaa baas balbalaarta waqti yar ayay qaadataa waxyar ayaan sugeynaa intuu nooga soo karkaraayo malayga ayaan sii diyaarsanaynaa salarkeeni iyo holeeni kaasa iyo cabitaanka ayaa sii diyaarsanaynaa way karkartay laakiin weli maysa bislaanin waqti ayay qaadataa maasha allah markii saas u xumbeyso baasta way karkarta waagii hore waxaa lagu tijaabi jiray derbiga maa lagu dhufa jiray miyaa ma ogi saas laakiin hadda isha ayaaba ka dareemay inay baasta bislaato wax yar ayaa u dhiman hadda waana soo miiranaynaa insha allah la socod wanaagsan asxaabteena maasha allah waa noo soo bislaatay iyo suugadeeni saas ayay noogu soo baxday sidoo kale malaygeeni iyo waxayna waa soo dhameysanay ansalaatadeena ayaa soo jarjaranay qadar dhameystiran maasha allah anaga caafimaad ilaahay aan ku cunaa na siiyo idinkan sidoo kale inaad cashirkan ka faa'iideen ayaan filaa ka faa'iideysi wacan asxaabtiina la sheer gareeya wixii commentin iyo reeba waana ku mahadsantiin daawadashadiina ilaa halkan badaa soo gaarteen aad ayaan iigu mahad celinayaa asxaabteeda
kun iyo koo jeer waan ii mahadcelinayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.